si wanaagsan u eeg sawirka ma garanaysaa qofka uu yahay. waxaan filayaa in aadan garanayn ama aadan maqlin maalin noloshaada ka mid a, laakiin waxaa lama huraan ku ahayd inaad barato oo taqaano, isla markaana aad u ogaato oo u dareento inuu yahay nin la mid ah kuwii xadgudbay oo ay ka mid ahaayeen Hitler, Stalin iyo Genghis Khan. ha la yaabin taasi, sababtoo ah waa ninkii dilay 10 milyan ee basharka aadamaha ka mid ahaa. waa Leopoldkii labaad, waana boqorkii Biljamka. markii uu boqorka ka ahaa dalka Biljamka intii u dhaxaysay sanadihii 1885 ilaa 1909 waxa uu mulkigiisa ama hantidiisa ku daray dalka Congo kadib markii uu isku dayay oo ku fashilmay tallaabooyin kale oo badan oo gumaysi doon ah, isagoo ugu dambeyntii doortay dalka Congo oo uu iibsaday dhulkeedii, dadkeediina adoonsaday, iyadoo xilligaa masaafada dhuleed ee Congo ay 72 jeer ka weynayd masaaxadda dhuleed ee dalka Biljamka. dadweynaha waddankaasi ku noolaa xilligaasi waxay ahaayeen dad aan waxna qori karin waxna akhriyi karin, waxaana xilligaa khiyaameeyey Leopold oo heshiis uu la galay ku qoray sidan: hogaamiyaasha qabaa'ilka ee heshiiskan saxiixay waxaa bil walba la siin doonaa waxoogaa yar oo dhar ah, iyadoo hadiyado kale oo dhar ahna loo raacin doono, waana inay faraha kala baxaan ubadkooda, qoysaskooda iyo guud ahaan xuquuqdooda oo ay yeelan doonto Biljamka kaasoo uu hogaaminayo Leopold, waana inay u hogaansanaadaan shaqaalahayga halkaa ku sugan dhammaan dhulka halkaa ku yaala, ugaadha, kalluunka, kaymaha, macdanta iyo dhammaan waxa halkaa yaala waxay markuu u noqon doonaan waddanka Biljam. arrinta la yaab kale ee dahsoonayd waa inaynaan inteena badani waxba ka maqlin Leopoldkii labaad, xitaa warbaahintu wax saasa kamay baahin in yar oo riwaayado ama filimaan ahna lagama matilin gaboodfalkii waxashnimada lahaa ee uu sameeyey, inkastoo ay ficiladiisu ahaayeen qayb xun oo ka mid ah taariikhdii isticmaarka, is-adoonsiga iyo xasuuqyadii ka dhacay qaaradda Afrika. xilliga Leopold waxa uu helay deegaan oo hanti badan ka kasbaday, iyadoo ahayd xilligii ay caalamku daaha qaadayeen samaynta cajaladaha gawaadhida, si weynna ay suuqyada adduunka kor uga kacday daawada cajaladahaasi lagu sameeyo iyo dhirta laga qoro ee laga dhiijiyo dawadaasi, taasoo ah mid ku taalla waddankaasi Congo. dariiqadii waxashnimada ahayd ee uu Leopold ku kasbanayay hantida ayaa waxay ahayd iyadoo ciidamadiisu weerarayeen tuulooyinka qabaa'ilka Afrikaanka, haweenkana afduubanayeen si ay ragga ugu oo khasab kaga dhigaan inay kaymaha galaan oo u soo lulaan dhirta kana soo qaadaan daawada cad, iyadoo qofka shaqadooda googoyska ka noqda ay ciqaab adag marin jireen. xilligaasi Leopold waxa uu adeegsan jiray calooshada u shaqaystayaal oo ula magac baxay quwaddii shaqaynaysay, kuwaasoo kormeeri jiray dadka la adoonsanayo xilliga ay shaqaynayaan, isla markaana ay shaabuugga ku garaaci jireen ilaa uu ka dhinto qofku, mararka qaarkoodna ay ka goyn jireen gacmaha, iyadoo kii aan ciqaabtaa ku dhiman uu ku nafbixi jiray culayska shaqada badan ee loo dirayo iyo qadoodiga cuntayarida iyo biyola'aanta ah. haweenka la afduubto ayaa iyaguna masrax u ahaa falal kufsi iyo ciqaab ah ilaa ay ka dhintaan. arrimahaasoo dhammina waxay ku dhacayeen xujooyinkii uu asteeyey Leopoldkii labaad ee boqorka ka ahaa dalka Biljamku. ololayaashii dadcunnimada ahaa ee Leopold ma ahayn sabab keliya ee tooska ahayd ee dhimashada keenaysay, laakiin dhibkiisa ugu weyni waxa uu ahaa markii uu raggii xoogga ahaa u kaxaystay shaqada, dhulbeeroodkoodiina waayeen wax ka shaqeeya oo carruurta, haweenka iyo dadka kale ee gaboobay u soo saara cuntada ay u baahan yihiin, kuwaas oo u dhibaatooday una dhimanayay gaajo iyo macluul. gaajadaasoo ku faaftay dalka Congo, dhalisayna cudurka daacuunka, kadibna ay u dhinteen malaayiin ruux. iyadoo haddaba Leopoldkii labaad uu falal dembiyeed waaweyn ka galay taariikhda adduunka, kuwaas oo aan ka yarayn kuwii ay galeen Hitler, Stalin iyo Genghis Khan, ayaa haddana maadaama dadkii uu waxyeellayey ay ahaayeen Afrikaanka weligoodba dulman, ayaan marnaba riwaayado lagu soo samaynin, filimaanna laga matelin falalkiisaas aynu ku xusnay barnaamijkeenna xogta dahsoon.
xuquuqdooda oo ay yeelan doonto Biljamka kaasoo uu hogaaminayo Leopold waana inay u hogaansanaadaan shaqaalahayga halka ku sugan dhammaan dhulka halka ku yaala ugaadha kalluunka kaymaha macdanta iyo dhammaan waxa halka yaala waxay markii u noqon doonaan wadanka Biljam arrinta la yaab kale ee dahsoonayd waa inaynaan inteena badani waxba ka maqlin Leopoldkii labaad xitaa warbaahintu wax saasa kamay baahin in yar oo riwaayado ama filmaan ahna lagama matilin gaboodfalkii waxashnimada lahaa ee uu sameeyey inkastoo ay ficiladiisu ahaayeen qayb xun oo ka mid ah taariikhdii isticmaarka is-adoonsiga iyo xasuuqyadii ka dhacay qaaradda Afrika xilliga Leopold waxa uu helay deegaan oo hanti badan ka kasbaday iyadoo ahayd xilligii ay caalamku daaha qaadayeen sameynta cajaladaha gawaadhida si weynna ay shaqaynayaan isla markaana ay shaabuugga ku garaaci jireen ilaa uu ka dhinto qofku mararka qaarkoodna ay ka goyn jireen gacmaha iyadoo kii aan ciqaabtaa ku dhiman uu ku nafbixi jiray culayska shaqada badan ee loo dirayo iyo qadoodiga cuntayarida iyo biyo la'aanta ah haweenka la afduubto ayaa iyaguna masrax u ahaa falal kufsi iyo ciqaabax ilaa ay ka dhintaan arrimahaas oo dhamina waxay ku dhacayeen xujooyinkii uu asteeyay Leopoldkii labaad ee boqorka ka ahaa dalka Biljamku ololayaashii dadcunnimada ahaa ee Leopold ma ahayn sabab keliya ee tooska ahayd ee dhimashada keenaysay laakiin dhibkiisa ugu weyni waxa uu ahaa markii uu raggii xoogga ahaa u kaxaystay shaqada dhulbeeroodkoodiina waayeen wax ka shaqeeya oo carruurta haweenka iyo dadka kale ee gaboobay u soo saara cuntada ay u baahan yihiin 1909kii waxa uu mulkigiisa ama hantidiisa ku daray dalka Congo kadib markii uu isku dayay oo ku fashilmay tallaabooyin kale oo badan oo gumaysi doona isagoo ugu dambeyntii doortay dalka Congo oo uu iibsaday dhulkeedii dadkeediina adoonsaday iyadoo xilliga masaafada dhuleed ee Congo ay 27 jeer ka weynayd masaaxadda dhuleed ee dalka Biljamka dadweynaha waddankaasi ku noolaa xilligaasi waxay ahaayeen dad aan waxna qori karin waxna akhriyi karin waxaana xilligaa khiyaameeyey Leopold oo heshiisu la galay ku qoray sidan hogaamiyaasha qabaa'ilka ee heshiiskan saxiixay waxa bil walba la siin doonaa waxoogaa yar oo dhar ah iyadoo hadiyado kale oo dhar ahna loo raacin doono waana inay faraha kala baxaan ubadkooda qoysaskooda iyo guud ahaan suuqyada adduunka kor uga kacday daawada cajaladahaasi lagu sameeyo iyo dhirta laga qoro ee laga dhiijiyo dawadaasi taasoo ah mid ku taalla waddankaasi Congo dariiqadii waxashnimada ahayd ee Leopold ku kasbanayay hantida ayaa waxay ahayd iyadoo ciidamadiisu weerarayeen tuulooyinka qabaa'ilka Afrikaanka haweenkana afduubanayeen si ay ragga ugu oo khasab kaga dhigaan inay kaymaha galaan oo u soo lulaan dhirta kana soo qaadaan daawada cad iyadoo qofka shaqadooda googooyska ka noqda ay ciqaab adag marin jireen xilligaasi Leopold waxa uu adeegsan jiray calooshada u shaqaystayaal oo ula magac baxay quwaddii shaqaynaysay kuwaasoo kormeeri jiray dadka la adoonsanayo si wanaagsan u eeg sawirka ma garanaysaa qofka uu yahay waxaan filayaa in aadan garanayn ama aadan maqlin maalin noloshaada ka mid ah laakiin waxaa lama huraan ku ahayd inaad barato oo taqaano isla markaana aad u ogaato oo u dareento inuu yahay nin la mid ah kuwii xadgudbay oo ay ka mid ahaayeen Hitler, Stalin iyo Genghis Khan ha la yaabin taasi sababtoo ah waa ninkii dilay 10 milyan ee basharka aadamaha ka mid ahaa waa Leopoldkii labaad waana boqorkii Biljamka markii uu boqorka ka ahaa dalka Biljamka intii u dhaxaysay sanadihii 1885 ilaa